طبعا waxaan ka soo baxnay xaafadda Deera oo qalalaasad badan ay ka dhaceen oo aad moodo saaka in dukaamo badan lagu bililkaystay dukaamada inta badan way xiran yihiin xaafadaha inaan dhex marno suuqal nooma ahayn laakiin xaafadani gabi ahaanba hal dukaan oo furan ayaan ka weynay waxay ka mid tahay xaafadaha ay mudaharaadyada waaweyn ee koonfurta ka socda maanta ay saameeyeen booliska ayaa nooga digay inaan xaafadaha dhex marno kadibna waxaan sameynay inaan kor ka soo marno wadada dheer iska soo qabsano si suuragal badqabkeena aan uga dhigno maadaama booliska uu aan ilaadaha presensiga ama joogitaanka booliska ayaa aad u sareeya meeshan dadkana waxaa lagu amray in xaafadaha iluluqyada iyo qaybaha dadka mudaharada ay joogaan aanan gabi ahaanba aanan marin dhowr dukaan oo Soomaali ah oo la boobay aan indhaheena ku soo aragnay walow boolisku ay naga diideen inaan kaamara adeegsano telefoonadeenna aan la cabsano wax ka weynay كله waxaan tagi doonaa xaafadda Biyaabal oo Soomaalida ay degan tahay dabcan daalafta waa ka sii bixinaa wax dad ah oo markaasi wax dhibaayay oo badan ayaan soo aragnay walow mudaharaadii ay iska socon laakiin dadkii xaafadda ayaa waxaa la leeyahay waxay qoonsadeen dukaamada la xiray dib kale ayaa ka jira koonfur Afrika saacadii la soo dhaafo ahaa meelaha ayna banaanbaxyada ka dhicin waxaaba banaanbaxyada u keenaya dukaamada ajaanibta way xireen dadkiina waxyaabaha yaryar oo ajaanibta Soomaalida ay ka gadan jireen ay u baahan yihiin marka hadii laga gedi waayo waxaad moodaa in dadkii ay boobayaan marka dabcan talaag kooban aan ka soo helnay Soomaaliya ku shiraysa halkaas waxay noo sheegeen in dukaamada aanan lahayn xataa booliska haday xiraan ay ku qasbeen in dadka daaqadaha ka caawiyaan si uu yaraan dukaamada loo badbaadiyo dukaamo badan ayaa waxa lagu boobay maxaa u xirteen oo kaliya marka haday dukaamadii furan yihiin waa dhib haddii ay xiran yihiin waa dhib dabcan xaafadda waa ka soo baxnay bal filaan geli doonaa oo ayadana sida xaaladeeda ay tahay soo ogaan doonaa dabcan kadibna waa dii soo tiri doonaa waa maasintii saaxiib